magaalada Gaalkacyo waxaa ku taala meherad la yiraahdo Daryeel oo caan ku ah iibinta shaahiye kala duwan oo caafimaadka loo sameeyay. way badan yihiin ilaa 10 nooc oo shaah ayaan meesha ku haynaa oo kala duwan. waxaa jira shaah hurdada, shaah maartay shaqada, shaah sheekada, shaah siyaasadda haday ka xumaato, intaas oo nooc oo shaah. macnaha way diidayaan in ay dhahaan shaah ragnimada. marka shaahan marka isticmaashid qofkii marka dadka inta badan Soomaalida way xishoodaan way ku leeyihiin shaah siyaasadda hagaajiyo iyo keen ku leeyahay. marka shaah siyaasadda u bixinay shaah xayaatul jismiga waay. meheradan waxaa si gaar ah looga ilaaliyay in shaaha lagu daro sokor iyo caleen aan dabiici ahayn, taasoo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh. armo xayaatiye shaaha waxaa laga ilaaliyay wax kasta oo dhibaato qof ku keenayo oo ah sida sokorta iyo wax kasta oo maartay flavor looga sameeyo oo dabiici ahayn ayaa laga ilaaliyay. waxaa lagu cuni karaa kaliya timirtaas iyo biskutkaas oo iyagana dabiici ah. biskutku waxaan ka sameynay macnaha waxyaalaha la yiraahdo barley ama head ama qamadiya laga sameeyay ama waxaan lagu daray macaan timir looga dhigay wax kale aan lagu darin iyo timirtii oo dabiici ah. dadka qaarkood malab ay codsadaan malabka oo keenaa isagana waa dabiici wax kale oo aan dabiici ahayn meesha lagu hayo. shaah kasta oo halkan laga helo wuxuu leeyahay faa'iido caafimaad iyo muhiimad gaar ah. waxa inoo sharaxaya Axmed Maxamed Xuseen oo ah mulkiilaha meherada Daryeel. marka dadkii oo dhan macnaha maskaxdooda waxa ku jiro kaliya in lagu xaliyo kaniini wax kasto macnaha kaniini calool socodsiin, kaniini hurdo, kaniini laf xanuun, kaniini maartay saas. marka maadaama arinta ay meeshan natural wellness ay ahayd oo dadka lagu daryeelayay ayaan waxaan u sameynay marka shaah madax xanuun, shaah laf xanuun, shaah hurdo, shaah wadna garaac aan u sameynay oo ah qofka markuu cababa isla markii natiijada uu dareemayo. tusaale ahaan qof ayaa madax laga hayo oo maartay ma gariinu qabaa shaah hal mar ka banaa laba mar saddex mar madaxiya u qaboway wuxuu leeyahay war waxaan mucjisada maxay tahay wax kale nama isticmaalin shaah ayuu cabay. waxaa ka mid ah nin isagana 60 jir meelahaas ah oo dhinaca macnaha aad uga leetay dhinaca maartay awoodda iyo ragnimada wuxuu yiri niyow shaahan intaan bilaabay isbedel weyn ayaan hayaa oo dhinacaas ah. waxaa ka mid ah dad hurdi waayo oo kaniini kasta tijaabiyay ama meel kasta tagay ilaa Hindiya hurdo la'aan ahaa markay ay bilaabeen shaahiyadan hurdo fiican iyo energy iyo awood iyo reereen ay dareemeen. bismillah saashagtay Saciid Nadaaro waa sax. shaahiyo ka duwan kuwa magaalada lagu iibiyo ayaan meesha ku haynaa oo kala duwan magacyo kala duwan ay dadka qaarkood u baxsadeen anagana aan u baxsanay magacyo kale. marka tusaale ahaan shaahiyada maartay aan meesha ku hayno oo magaalada aan uga duwanaa waxaa ka mid ah shaah la yiraahdo xayaatul jismi, shajaratul muluk, lafta timirta shaah la yiraahdo moringa ama shaaha moringaha, shaaha basbaaska. way badan yihiin ilaa 10 nooc oo shaah ayaan meesha ku haynaa oo kala duwan. waxaa jira shaah hurdada, shaah maartay shaqada, shaah sheekada, shaah siyaasadda haday ka xumaato, intaas oo nooc oo shaah. ujeedka markaan maqaayadan furaynay dad badan ayaa waxay u imaan jireen cunto. marka cuntada markay u imaadaan qofku wuxuu leeyahay niyow kaniini madax xanuun ama haysaa, niyow kaniini maartay wadna garaac ma haysaa, niyow kaniini hurdo ah ayaan u baahanahay. marka dadkii oo dhan macnaha maskaxdooda waxa ku jiro kaliya in lagu xaliyo kaniini wax kasto macnaha kaniini calool socodsiin, kaniini hurdo, kaniini laf xanuun, kaniini maartay saas. marka maadaama arinta ay meeshan natural wellness ay ahayd oo dadka lagu daryeelayay ayaan waxaan u sameynay marka shaah madax xanuun, shaah laf xanuun, shaah hurdo, shaah wadna garaac aan u sameynay oo ah qofka markuu cababa isla markii natiijada uu dareemayo. tusaale ahaan qof ayaa madax laga hayo oo maartay ma gariinu qabaa shaah hal mar ka banaa laba mar saddex mar madaxiya u qaboway wuxuu leeyahay war waxaan mucjisada maxay tahay wax kale nama isticmaalin shaah ayuu cabay. waxyaalaha walaal ay ka samaysan yihiin Saciid Nadaaro haddaan kaaga taabto waa dhirteeni oo wadaniga ah sida moringo oo ka baxay Gaalkacyo, sida macnaha lafta timirta oo laga keeno Sacuudi. inta badan dadka waxay ka keenaan timiraha Sacuudiga iyo Dubai. anaga markaas lafta timirta oo Sacuudiga laga keenay ayaan waxaan ka sameynaa qaxwo qaxwihii kalena u bedelayo qaxwana u dhan eg
kana fiican kana macaan gaasna aan kicinayn iyo sida shajaratul muluk shaah la yiraahdo oo shajaratul muluk geed la yiraahdaa laga sameeyay xayaatul jismiga little bit difference ah ilaa 10 dhir lisu keenay oo dhiraha ka mid yihiin shamaarkii sactarkii nacnacii maartay qorfii heelkii dhagyarihii intaasoo nooc oo 10 iyo dhowr nooc oo dhir la isku daray ah laakiin inta kale waa ama hal shay ama laba shay oo kala duwan qofkana specifically isaga dalbanay wuxuu leeyahay inuu shaah energy u baahnaay waa u keenina dhirna ay ka samaysan yihiin oo dabiici ah oo wax dhibaato ah qofka aysan ku keeni karin insha Allah walaal waxaan ku ogaanay aniga waxaan si fiican u bartay dhinaca nutritionka iyo nafaqada marka way saamaysaa oo ah shay walbo fitamiinada ku jiro hadda tusaale ahaan moringa ayaan soo qaatay waxa ku jira fitamiinada qofka bini'aadamka u baahan yahay sida magnesiumka zinkiga maartay calciumki vitamin A gi vitamin D gi kulli oo qofka bini'aadamka ah u baahnaa marka shaah moringaha ayaa la yiraahdaa magaciisa waa hal maado ama laba maadaan ka dhigna marka qaarkood basbaas ayaan ku darnaa dadka si ay qof walba baahidiisa ayaan fiirinaa marka mar walba qofku wuxuu u baahdo tusaale ahaan qof iimaana wuxuu leeyahay madaxna uu xanuunaya wadnahana uu garaacaya marka waxaan isku darnaa basbaaskii iyo moringihii si marka uu u wada helo faa'iidadii wuxuu ka awanahay xididada furaa maado la yiraahdo capsaicin ayaa ku jirto sidii wuxuu u dhaqmaa aspirin oo kale qofka tusaale ahaan wadnihii garaacaya shaagan u cabaya xididadii dhiigii si tartiib ah ay u furmaa awal macnaha blockage inuu jira laga yaabo ama xididadii ay xirnaayeen ama cholesterol ha xiro ama waayeelnimo oo xididadii ay daciifeen waxyaalo badan ayaa xididada maartay ku keeno inay maartay sidii la rabay aysan u shaqeyn kan ugu daran waa shaaha siyaasadda dadka ay u baxsadeen macnaha way diidayaan in ay dhahaan shaaha ragnimada marka shaahan marka isticmaashid qofkii marka dadka inta badan Soomaalida way xishoodaan way ku leeyihiin shaaha siyaasadda hagaajiyo iyo keen ku leeyahay marka shaaha siyaasadda u bixinay shaaha xayaatul jismiga waay macnaha waa shaahi aan u bixinay qof macnaha dhintay oo kale ay soo nooleeyaan dhintay waxaan ka wadaa qof sidiisa nafaqa ahaan u liito u baaba'ay markuu isticmaalo isla markii back up soo inaa macnaha energy helaya maartay wuxuu rabay oo energy ah dhinac walba ah ayuu arkaya aad u badiyay waxa kamid ah nin wadnaha laga hinjiray waqti badan dhaqaatiir badan tagay xitaa loo qoray in la yiri wadnahadu waa qalitaan wax aan ku maartay aan ku hayno Dr. Burcil ilaahu naxariistee ayaa yiri waa qalitaan Ethiopia tagay waxa la yiri waa qalitaan gaalkacyo natural wellness yimid ninkaas waan haynaa fariin wuxuu yiri maartay qof kasta waa ii soo diri kartaa waan siin karaa fariinta mid kale massage iyo toobin iyo waxaasna u sameynay shaahana wuxuu yiri isbedel weyn ayaan ka dareemay waxa kamid ah nin isagana 60 jir meelahaas ah oo dhinaca macnaha aad uga leetay dhinaca maartay awood iyo ragnimada wuxuu yiri niyow shaahan intaan bilaabay isbedel weyn ayaan hayaa oo dhinacaas ah waxa kamid ah dad hurdi waayo oo kaniini kasta tijaabiyay ama meel kasta tagay ilaa Hindiya hurdo la'aan ahaa markay ay bilaabeen shaahiyadan hurdo fiican iyo energy iyo awood iyo reereen ay dareemeen shaaha waxa laga ilaaliyay wax kasta oo dhibaato qof ku keenayo oo ah sida sokorta iyo wax kasta oo maartay flavor looga sameeyo oo dabiici ahayn ay laga ilaaliyay waxa lagu cuni karaa kaliya timirtaas iyo biskutkaas oo iyagana dabiici ah biskutku waxaan ka sameeynay macnaha waxyaalaha la yiraahdo barley ama head ama qamadiya laga sameeyay ama waxaan lagu daray macaan timir looga dhigay wax kale aan lagu darin iyo timirtii oo dabiici ah dadka qaarkood malab ay codsadaan malabka oo keena isagana waa dabiici wax kale oo aan dabiici ahayn meesha lagu hayo sokortana qofka dhibaato weyn ay ku leedahay Soomaalida inta badan shaaha qaldan cabo wadna xanuun iyo cholesterol iyo waxa lagu sheegaa hurdo la'aan dadkaas walaal aad iyo aad horta marka ugu horeyso su'aashaas waa su'aal aad u balaaran aan lagu xalin karin daqiiqad iyo 2 daqiiqo laakiin fariinta ugu kooban waxaan aaminsanahay ani ahaan shaaha sokorta leh oo weli sokorta lagu daray in uu ka liito qamri marka dadka oo shaaha sokorta leh isticmaalaya ama sokorta dadka qaarkood waxay leeyihiin waxaan ku daray far isuul
fariisul sokor waaye mar walba sokor hadda isticmaasha waa sokor marka dadka waxaan usoo jeedinayaa sokorta iyo dhiigkarka iyo wadna garaaca iyo cholesterolka iyo hurdo la'aanta qabo inay iska daayaan marka u horeyso shaahaas waxaa kale usoo jeedaan gabadha uurka leh iyo cunuga yar oo maskiinka ah aan garan karin waxa saxda ah iyo waxa qaldan marka dadkaas ugu liito markaas oo ah qof waayeel ah cunuga yar iyo hooyada uurka leh iyo qofka xanuunyada macnaha kala duwan qabo inay iska daayaan sokorta iyo saliidda cad iyo burka cad intaas waa waxyaalaha ugu daran oo qofka bini'aadamka ah aad caafimaadkiisa u dhibayo